Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqosho kale oo qurux badan. Waxaan filayaa qof kastaahiba inuu xaggiisa ku nabad qabo. Waxaynu soo wadnay maalmahanba oon dabada soo haynay wuxuu ahaa chapterkeeni autonomic physiology ama autonomic nervous system, inaga oo soo kala sheegnay introductionkiisii waxa uu kala qaybsamaya soo sheegnay. I think inaan concept fiican ka haysano all about that parasympathetic iyo sympathetic aan u kala qaybeynay nervous autonomic ku qaybinay. Waayahay, let's start our begin our discussion today. What is our discussion today? Waxaynu maanta ka hadli doonaa receptors-ka uu leeyahay autonomic nervous system ama autonomic receptor uu leeyahay soo soo sheegnay la dhahdo concept-ka cholinergic receptor iyo adrenergic receptor midna isku dul taagi doona. Waayahay, receptor-ku on the cell membrane ka receptor laga helaa oo protein molecule kuwaasoo penetrate garaya all way through cell membrane ka dhex gudbaan. Waayahay, marka neurotransmitters-ka ay ku dhagaan receptor-ku waxay soo haysaa conformational change structural receptor of protein. Waxay soo jirtay mataqaanaaye marka uu neurotransmitter ku dhago receptor-ka waxay soo jirtay conformational change inay substance conformational change waxyaabo inay u bedesho formational change waxyaabo macnaha socday inay bedesho. So tusaale ahaan oo kale haday meel ay taaleen guanosine diphosphate inay triphosphate ka dhigaan tri inay ka dhigaan ion channels inay activate garayaan ama inay mataqaanaa inhibit garayaan enzymes inay mataqaanaa activate garayaan ama inhibit garayaan. Ion channels meesha soo galaan inay enzyme activate garayaan ama inhibit garayaan. Saddexda function ay qabtaan tusaale ahaan guud ahaan laga hadlayo mataqaanaa markuu ku dhago neurotransmitter-ku receptor-ka. Waayahay, ka ugu horeeya waa maxay? Neurotransmitter-ka laba kala qaybin doonaa, qaar acetylcholine receptor ay ku qabsanayso iyo mid kale oo norepinephrine ay qabsanayso. Acetylcholine maxay tahay? Acetylcholine receptor-ka hadhayna cholinergic receptor baan odhanayna. Haddaynu cholinergic receptor odhano sababta acetylcholine ba neurotransmitter. Waxaan kala qaybinaa cholinergic receptor labadan kala qaybin doonaa nicotinic iyo muscarinic baan kala qaybin doonaa. Maxay kala yihiin isku taagna? Waxa activate garaya lagu yiri muscarinic receptor-ka acetylcholine ku dhigto muscarinic receptor-kaas activator bay noqonaysaa. Waxa soo kala activate garaya muscarine poisonous-ka fungi-gaas laga helaa poisonous-kaas. Soo kale waxa laga helaa fungi lagu yiri on all effector organs-ka loo socdo laga helaa lagu yiri daadkaasoo are stimulated by postganglionic cholinergic nervous system either parasympathetic iyo sympathetic. Muscarinic-ku mataqaanaa waa laga heli karaa lagu yiri mataqaanaa sympathetic iyo parasympathetic baa laga heli karaa lagu yiri. Sababtu maxay tahay looga helayo? Waxaan waa receptor haddii uu receptor-ku yahay mataqaanaa parasympathetic wuu noqon karaa inay digto norepinephrine nicotine muscarine inay meeshii digto. Laakiin muscarine waxa la yiraahdaa waa very important receptor balada sababtoo badanaa laga wada helo salisyadeen laga wada helo marba laga helaa parasympathetic laga helaa badankiisa marka uu visceral organs-ka waxaynaysa cardiac muscle-ka galaanka waxaasoo kale markuu waxaynayo ayaa laga helaa mataqaanaa muscarinic. Soo kale mar waa la helaa muscarinic waxa laga helaa sympathetic markuu yahay sweet glands-ku markay sympathetic yihiin waa laga helaa labadaas cells waa laga helaa sympathetic iyo parasympathetic. Nicotinic haddaan isla eegno marka kan lagiisa muscarinic waa mid very important oo drugs la yiraahdo jira muscarinic antagonist oo anticholinergic drugs la yiraahdo hadhow gaari doona. Nicotinic receptor baa jira waxay activate garaysaa sidoo kale acetylcholine si lamid ah waxay activate garaysaa nicotine substance oo laga helo tobacco sigaarka waxa laga helaa guri arvun waxa laga helaa autonomic galiyo at the synapse between the pre and postganglionic nerve sympathetic iyo parasympathetic. Badanaa kuwa ugu badan laga hela mataqaanaa ay soo sheeg inay laga helo cells-keena ama receptor-radeena waa nicotinic receptor neuron-ka waa kuwa ugu badan oo laga helo waliba preganglionic iyo postganglionic labada laga helaa. Laakiin kan maxaa laga helayaa muscarinic kaliya postganglionic khaas cholinergic receptor.
kan lagise waxaa laga helaa beriga iyo bostiga waa laga helaya neuronka sympathetic iyo weliba parasympathetic sidoo kale waxaa laga helaa nicotinic receptorka neuromuscular junctionka meesha macnaha neuromuscular junction baa la dhahaa kaas waxaa la dhahaa neuromuscular junction baa la dhahaa neuromuscular junction baa la dhahdaa macnaha meeshaas halkan abbreviationka xagga imika tusaale ahaan noo yaalo kale neuromuscular junction waa laga helaa sidoo kale somatic waa laga helaa kii autonomiga kullidka ahaana waa laga helaa agtiisa laga helaa nicotinic receptorka way adrenergic muxuu yahay halkan waxaan kusoo dhamaynay cholinergic receptor waxaan kusoo dhamaynay bal maxaan isla eegnaa doo adrenergic receptor adrenergic muxuu doonaa adrenergic laba mid noqdaa waxaa isku kala qaybiyaa isaguna sidii mataqaanaa cholinergic oo isku kala qaybinayay nicotinic iyo mataqaanaa iyo muscarinic receptor kan waxaa isku kala qaybinaya alpha and beta alpha 1 iyo alpha 2 iyo beta 1 iyo beta 2 intaas uu kala baxaa way norepinephrine ba excite ah mainly alpha receptor but excite beta receptor is lesser extended as well beta receptorku but waxaa lagu yidhi norepinephrine-ku mainly alfada ayay mataqaana ku xoogsantahay activate gareysa marka loo eego betada baa lagu yidhi waa epinephrine baa sidoo kale excite ah both alpha and beta abrimoxil equal janiska epinephrine ku activate gareysato ama ugu dhegto labada receptor alpha iyo beta waa isku mid halka laga soo epinephrine ay mainly ku tahay alfada aan ka socono halka waxaan kusoo dhaweynay adrenergic iyo receptoradii ahaa adrenergic iyo cholinergic receptor waxay kala yihiin iyo waxa kala qaybsamayaan haddaynu concise ka siino iyo ka koobno cholinergic hadduu neuronku yahay waxaan odhanaynaa acetylcholine baa ah neurotransmitter cholinergic receptor maxaanu kala qaybin doonaa sida hore soo sheegnay muscarinic iyo nicotinic waayahay adrenergic receptor haddaynu leenahay waa saliska waxaa ah epinephrine baa ah neurotransmitter waxaanu kala qaybin doonaa adrenergic alpha and beta alpha waan soo kala qaybin doonaa alpha 1 iyo beta 1 alpha 1 iyo alpha 2 beta waan soo kala qaybin doonaa beta 1 iyo beta 2 way waxa la yiraahdaa daba alfada marka loo eegayo lagu yiri alfadu neuron alpha receptorka waa ka dhigid og yahay macnaha waa ka extend ka activation og yahay neurotransmitterka norepinephrine ku dhigto marka loo eego betada halka epinephrine-ka oo iyada lagu soo daayo mataqaanaa badankeeda 80% lagu soo daayo mataqaanaa module adrenergic module lagu soo daayo way ka waa janiskeedu waa equal alpha iyo beta haddana ka socono sympathetic iyo parasympathetic waxa kala dhaxeeya sympathetic ka parasympathetic ka waa adrenal cortex maxay noqon doonaa waxay increase gareeyaan sympathetic in lagu soo daayo epinephrine iyo norepinephrine secretion parasympathetic effects lama oga sababta waa ku yaan lahayn waa exceptional dual innervation pancreas choose inkii waxa decrease kartaa lagu leeyahay sympathetic wuxuu decrease karaa lagu gastric choke secretion waxay soo sidayso macnaha pancreas soo sidayso ayuu mataqaanaa ayuu soo sheeg ayuu yareeyaa pancreatic choke sidoo kale kana uu increase karaa parasympathetic insulin to secretion keeda uu yareeyaa sympathetic haloo kan parasympathetic uu dalaco posterior pituitary gland sympathetic wuxuu dalacaa lagu leeyahay antidirect hormone lagu sidayo not no effect lama oga parasympathetic ADH ka antidiuretic hormone pineal gland-ka oo ay ka sidayo melatonin ee lagu kala regulation gareeyo dhiiganaadka pineal gland-ka uu increase gareeyaa secretion-keeda melatonin marka sympathetic leeyahay parasympathetic lama oga lagiis ADH ka muxuu yahay function soo noqono antidiuretic hormone wuxuu soo celiyaa water absorption balada hormone way haddana ka socono sweet gland-isku uu increase gareeyaa soo deyntiisa sympathetic marka la eego effectiga lama oga laakiinse parasympathetic ay soo kale wuxuu increase gareeyaa balm and solace wax inuu soo sidayaan obviously liver kana wuxuu soo kala sameeyaa sympathetic glycogenta in la buriyo oo qaabilsaya lagu mataqaana soo kale wuxuu dhimaa lagu wuxuu decrease gareeyaa bile secretion in bile kala soo sidayo si cuntada loo emulsify gareeyo bile kana u dalacan parasympathetic si cuntada loo emulsify macnaha utqana loo emulsify gareeyo macnaha detergents loo sameeyo cuntada lagu xaadho jirkeena dibadda lagu saaro waayahay
adipose tissue-geena ana qaybta baruurta lipolysis buu qaabisay in lipids la burburiyo iyo sympathetic buu qaabisay effectiga parasympathetic lama ogo increase wuxuu qaabisay fatty acid secretion into blood in lipids la soo burburiyo oo fatty acid la soo qaado bloodka lagu daro waxa activate gareeya ma taqaana ma increase gareeya waa sympathetic halka parasympathetic looga effective renal gland inuu renal gland soo renal gland ku soo sidaayo ami renal gland ha sax inuu renal gland ku soo sidaayo waxa renal inta la soo sidaayo oo increase gareeya sympathetic layse parasympathetic waa ma effective way renal waa protein waa enzyme activate gareeya angiotensinogen to angiotensin 1 hab la yiraahdo angiotensin hab la yiraahdo mataqaanaa angiotensin RAS system la yiraahdo RAS system la yiraahdo renin angiotensin aldosterone system la yiraahdo RAS system la yiraahdo marka systemkaasi miisata renintani RAS kaas wuxuu yahay waa hab lagu maintain garanayo blood pressure ka jirkeena wuu increase gareeya enzyme kana sympathetic way cardiac muscle ka daneeymana heart-ga uu increase gareeya marka loo eego sympathetic halkana inhibiting effect ka heart cardiac inuu isagu yareeyo heart-ga garaaciisa waxaan yareeyo vasoconstriction buu qaabisay infectionkiisu halkana ka yahay vasodilation arteria pressure ku dalaca force of contraction heart-ga inuu dalaca waa sympathetic lung bronchitis adaska qarsan yahay hata aska akhrisan karaya sympathetic wuxuu qaabisay bronchodilation macnaha meesha airway hawada marto dilation ka dhigo oo weyneeya halka sympathetic inuu parasympathetic ka dhigo constriction oo yareeya macnaha isku soo ururiya macnaha way respiratory ku dalaca tidal volume ku dalaca tidal volume ku waa volume waa hawada aad qaadan karto inspired and expired saari karto jirkeena waxa lagu qiyaasaa 500 ml lagu qiyaasaa marka intaana uu activate gareeya soo kale GI ga maxaa qataa inhibitor effect uu qaabisay central nerve sympathetic halka parasympathetic uu qaabisay stimulatory inuu activate gareeyo way wuxuu sii socdaa wali halka ma dhow Allah musta'an soo kale wuxuu qabtaa ismuusalka function ka qabtaa ma taqaanaa soo sheegnay kala raado ismuusalka function ka qabtaa sympathetic oo muxuu sameeyaa hadeerano soo sheegnay ismuusalka waxa kamid ah iris radial muscle-ka iyo circular muscle-ka ay leeyihiin iris ama aydu contraction buu ka abuuraa oo dilation gareeya dilation contraction buu ku sameynayaa radialkaas inta soo qaadana isha salahan say kale isha markay la saato kala tahay waxay leedahay masaysa wareegsan markii isha ka tahay iyo qaar kale iyaguna staaya marka isha la doonayo in la yareeyo la isku soo ururiyo macnaha contraction lagu abuuro waxa la adeegsanayaa kuwa circular muscles-kaas la adeegsanayo hadalka marka ka la adeegsanayo marka in dilation lagu sameeyo la doonayo waxa la adeegsanayaa kuwa la adeegsanaya kuwaas la adeegsanayo isku soo ururiyana si ishi dilation loo sameeyo macnaha buibil ka loo yareeyo buibil ka markaas sympathetic wuxuu dalacaa in dilation buibil lagu sameeyo isagoo qaajinay radial muscle radialka maxaa dhadnay waa ka soo dhadnay circle wuxuu ku soo wareegsan marka circle kunu contraction muscle ka marka soo fidsan kala contraction ka buriyo marka tan dilation noqonays way halka circular muscles kuna effect ku ma sympathetic layse kana effect ku la parasympathetic effect ku circular muscles ka soo sameynaya contraction taas ay sheeraysa bibilki yarana constriction noqonaya way ciliary muscle baa jira ciliary muscle oo muscles ki matqana relaxation ka wari efficient ka ana ishu yareynaya contraction near vision macnaha marka sympathetic adeegsanayo distance vision macnaha oo adin ishu yareynaya kana wada contraction ka abuuraya ishu matqana near vision marka distance vision macnaha waxyaabo inaga fogaadeen ishu kala fidinaya saw kala fidinaya ama ka tusalahan wax meel dheer ka jira adeega soo kala qodiga ishu indha saw kala qabtay saw eega saa indha kala dhaay macnaha isha iyo weyneeyay isha saa bibilka weyneeyay ka waxa shaqeynaysa sympathetic kalba parasympathetic ka shaqeynayna xilliga walaxa ku yara marka ilbada dunka galiso kale sadasha isugu yaraanayso kale iyo xilmida urinary bladder ka kamid relaxation buu ka abuuraa lagu leeyahay matqaanaa central sympathetic markuu relaxation ka abuuro say wax uga baxaan kana contraction wuxuu ka abuuraa matqaanaa relaxation oo macnaha uu weyneeyaa macnaha bladder ku weyneeyaa kana contraction ka abuuraa say wax soo dhaafan urinary soo sameeyo uterus wuxuu ka sameeyaa inhibition contraction buu ka soo yeelo lagu leeyahay marka sympathetic oo macnaha pregnancy kuma fiicno kulay nan pregnancy qofka nan pregnancy oo sameeyo kulay
inhibition of contraction non pregnancy contraction of pregnancy qofka macnaha idoo sheeg pregnancy-ga la buuri non pregnancy-ga buuri inhibition buu ka abuuraa layso qofka pregnancy-ga le contraction buu ka abuuraa kan laakiinse inhibition buu ku sameynaya contraction-ka mataqaana uterus-ka qofka uurka leh gabadha uurka leh waa symptomatic halka xilliga ay uurka leedahay contraction ku sameynayo xilliga kalena oo inhibit ku sameynayo kan laakiinse effectigiisa ma jiro sex organs-ka kamid ah ejaculation buu sababaa inay spermti kasoo baxdo jirkeena waxaan jeedaa ejaculation inay spermtu kasoo baxdo from penis-ka ay tagto to outside of the body in jirka kasoo dibadda kasoo baxdo jirka ninka ragga ayay u qaabilsan tahay mataqaanaa symptomatic halka uu parasympathetic-kuna erection inuu mataqaanaa muscles-kii of the penis-ku inay erect noqdaan macnaha kacaan way hair follicles-ku qaabilsan contraction buu ka wadaa hair follicles-ka oo erector pili muscle baa jira naadir soo lahayn erector pili muscle-ka isagu wuxuu qaabilsan symptomatic markasti goosebumps marka xilligan juruucada oo kale waa hair follicles-ki ay yihiin muscles oo guy jirkeena ilaado mataqaanaa erector pili muscle kaasoo contraction ku abuuraya marka erector pili distribution-kiisu symptomatic waa wide anaga haddii soo sheegino saliid fara badan buu dhaqmaa kan isaguna waa local oo meel qaas uu dhaqmaya hadaynu ku soo celino markayna hadda soo lahayn symptomatic duu kaas ka duu parasympathetic inoo soo qaad kaas kana inoo soo qaada symptomatic hadduu ka parasympathetic yahay organ khaas uu dhaqmayo lagu leeyahay nervation-ku waxayna khaas uu dhaqmayo leeysa kan uu kala baxaya isagu taas kuma noqonaya macnaha waa wide weeyaan isagu waa wide distribution-kiisa waa wide halka kana parasympathetic weeye organ-ku nervation garanaya muu kaliya dul tagaya bas damasla fahmi waaya hadaynu ka socono waxaan jeclaan in waxaan ku joojino sababtoo kosob kalan galnaa insha allah inoo xisada dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh